دشو هذا فير مسكين كان داخل رجلي يرادو انت اسقوان هل اسبوع قعنتي كجبس sida muuqaalka bilowgiisa ku aragteen gabadhii Mrs. Unsi ahayd xariifkii hadda dhow guursanaysay ee deeq darajo gacan iyo lugay baf ka siisay war Mrs. Unsi walaalaysay wax wadaa hadda ka hor wiilkii ay kala tageen ee Cabdifitaax waa kana sawirkiisa gacanta bidixay ka jibisay deeq darajo ee isbuuc ka hor guursatana waa kana asagana gacanta bidixay ka jibisay waa kana deeq darajo maskiinka waxa wareysanaysa Ramlo wuxuu taagan yahay dhib malaha waxaan qadar Ilaahay waay war wax qadar Ilaahay Allah ma jirto gabadhan ayada ugu tala gashay inay gacanta ka jibiso waxa kale oo la sheegayaa wiil kale oo magaciisa ma aqaan laakiin say sheegayeen wiil ogaadeen xaniyaha kala baxday hal xaniye ka siibta Allah war Mrs. Unsi say wax wadaa walaalay gabadhan quruxda badan oo kala jarjaran oo diyaarsan ilaa waxay single kala tahay waa bedila waxaa gabadhan maxay single la tahay ilaa waaba gabar dadka xaniyaha kala baxayso gacan iyo lug isdhaafay ku jibinay teeda kala deeqow adin maskiino iska gaabana tahabe 2 mitir ta saaxiibkii maxaa naagtan ku geey tan habeenkii inta qolku u soo xiratay cunug yariis camal ay ku soo qasbinay waaba ku dilay tan ninkan hadduu dhinto qoftaas aad dishay ha laga warhayo maskiinkan hadda isbitaal uu ka imaaday u jeedin gacanta dhan duuban waa iska qosla macnaha adeer wadadii oo Cabdifitaax maraa maraysa ma fahamtay haddeertan xaniyaha ayaa laga baxsanin war xaniyaha ilaasho deeqow xaniyaha ilaasho islaantan waa islaan u soo dhigatay ragga inay disho Mrs. Unsi raggii dhihi jiray gaadgaadi jiray muuqaalkan adinka iska leh gabadhan iska ilaaliya haddii kale labadan nin meeshay mareen in wiilka kale maskiinka xaniyaha lagala baxaa idinkana maraysiin bal muuqaalkii waxa idin soo diyaariyay muuqaal ku saabsan gabadhan qaabkay wax u sameysay bal waa idinkaga dhex bixi doonaa muuqaalka laakiin intaan idin bilaabin waxaa idin xasuusinaa inaa muuqaalka like gareysaan waayo like muhiim waaye fiidiyowgana share garee subscribe-tana channelka saara muuqaalka ila daawada insha